بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قدومي كحيينك كوباد أقل كسره ودانا عبشر مدحوينها دولتك بنت الله سعيد عبد الله الدين مدحوينها مدرالك الصومالي الشيخ محمود مدحوينها ولدك الصومالية مدن حسن الشيخ شريف شيخ أحمد قدومي أنا مدحويني كوفر قلبات شريف شيخ أحمد مدحويني قلبي وزارة بين الصومالي عبد الكريم قولي لما نحلنا الله لبدا عقل أصحابتك لا كوا قلالك سوى قلالي عبد الرحمن عبد الشكوري مدحضي هورسي مدحويني هوري دور قولتك بنت الله عبد الرحمن فريلة لما نحلياشك لا حبناها لبدا عقل كتشوغا بنتلان iyo Jubaland isimada waxgaradka cuqaasha baada saxaafada qaybaha bulshada rayidka ciidamada sugidda amniga iyo ku hawlan iyo tiimka qaban qaabadaba waxaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh iyo mahad celin isugu jirta waxaan idinka mahad celinayaa waqtiga dheer ee adag ee nala qaadateen iyo xaaladda adag ee intii naasoo mas-uuliyiin maanta aada isugu timaadeen waxaad qabateen shaqo adag laakiin waxaan leeyahay laa shukru cala alwaajib waxay idin saaraa waad qaadateen waan idinka mahad celinaynaa laakiin waa mid la isku wada leeyahay ku soo dhowaada dhulkiinni iyo dadkiinni oo idin sugayey cid waliba iyo munaasab kasta iyo magac kasta ay ku fadhido inta noo timid iyo kuwa naga maqanba iyo kuwa nagu fikirkaaba intaa haddaan ka gudbo dowlad goboleed Jubaland waxay leedahay badii xilliga aan ku sheegay iyo danta waxa aanu doonayno taasoo ahayd inaan mar walba ka shaqaynayno dib u heshiisiin isu tanaasul isku xidhnaan iyo wada shaqayn waa halhayska ay leedahay Jubaland mar walbana mid ay iyadu u taagan tahay waxaan ballan qaaday inaan dhammaystirayno sistamka dowladnimo waxaan ognahay Soomaaliya sistamka dowladnimo ay qaadatay saddexda leeyara ee dowladda federaalka dowlad goboleedka iyo midda la dhisayo councilada ama dowladaha hoose ilaa heer degmo gaaraysa inaan dhammaystirno oo aan doonayno sida asxaabta qaarkeed ay ka hadlayeen inay noqoto xilligan waqtigiisa kale waxa laga hadlayo doorashooyin ka dhaca ilaa heer degmo oo guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubaland ay ku hawlan yihiin sida ay deegaanada uga dhisi lahayn maamuladaas oo qoriisu dhiib ku shaqayn doono haddii aynan kuwa deegaanada jooga xuquuqdooda helin ta dowladda goboleedkuna aynu helaynin ta dhaxana aynu helaynin noqonayso jaranjaro isku xidhan waa siyaasadda aan leenahay ee aan doonayo inaan xaqiijiyo sanadaha soo socda haddii ilaahay nala garab galo oo aan doonayno wajiga maanta aan ku jirro mid ka bedelan inaan gaari doono aanan codsanayo dadka reer Jubaland inay nagu taageeraan nagu garab istaagaan idinkana aad markhaati nooga noqotaan waxaa ka mida Jubaland aasaaskeedii oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka cabdikariimna uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha waan garanaynaa intii aan soo maray iyo processkii iyo sidii lagu dhisay iyo dhibkii aan kala kulannay waxaan uga mahadceliyaa qaabka loo dhisay iyo sida loo dhammaystiray goboleedyada hadda la soo gaarsiiyey waxaa markaa aan xilligaa ku gaarnay waxaad garanaysaan inay dib u heshiisiin dadkii aan keenay oo annagii iyo dowladdii jirtay xilliga aan isla qaadanay 7 madaxweyne sheeganaysa iyo intaasoo isku calaamo shubtay
iyo intaasoo la maray intii la isu tanaasulay in la isugu yimid oo la yidhi war Soomaali kugusan iyo walaalo waxay ku dhaantay ma jirtee aan si walaalnimo wax ku raadino maantana waxaan leeyahay way ka yar tahay tii hore tanaa ka fudud markaan Jubbaland dhisayno midda maanta aan ku jiraa ka fudud waayo taasi waxay ahayd fikir kala duwan oo dad badan oo kala duwan ay ku hadaaqayeen laakiin tan aftir bay leedahay iyo sumadda leedahay waa dowladda federaalka iyada la rabaa inay xalkeeda keento saaxiibada aan isaynana iyo waxa xilfi la tahay inay keento intaan isu nimaadno aan gobol ku wada fadhiisano oo isu nimaadno oo dib u heshiisiin iyo wada hadal wax walba lagu dhameeyo waxaan hore u ballan qaaday dowladda federaalka inaan diidanayn dhibaato aanan ku haynin wada hadal iyo safgarad iyo safgarasho iyo heshiis iyo isu tanaasul inay tahay waxa dowladnimada Soomaaliya ay ku waxaysan tahay haddii siyaasadda la fiiriyo qof waliba waxa uu rabo dantiisu ma u hirgelayso qof walbana rabitaankiisa ma aha dowladnimadu waa waxa isku keen wadi kara isu keen han kara inuu wada midayn karaya midda in laga wada shaqeeyo sidaa daraadeed aabaha iyo wiilka qofka waajibku uu saaran yahay waa aabaha ee garanaya wiilkiisan waxa ka maqan iyo qowdkiisu waxay tirsanayaan waxaan leeyahay marka khalad kasta oo dhaca dowladda federaalka manzilada abay taagan tahay iyada laga rabaa inay sixitaan tanaasul wada hadal isu dhimrin ay la timaado waxyaalaha hadda dhaqamada qaarkood ee jirana waa waxaan Soomaaliya xal u ahayn oo calaalku uu sii socdo uu sii xumaan karo waxaad garanaysaa burburkii dowladnimo ee Soomaaliya wixii sababay maanta qof kasta oo Soomaaliya joogay oo muddadii burburka joogay oo dhex joogay oo wixii wadanka ka dhacay ogaa oo waxa uu sahlan ay tahay Cabdiraxmaan Shakuur laba kooxood oo magaalada kuwa joogay kuwa kale raashin isu weydiinayay oo marxaladaha aan garanayna aan la soo maray oo aan xamar garanayna waxay soo martay qof kasta oo jooga oo dibadda ku maqnayna wadanka joogay wuxuu ka daqanayaa tallaabo kasta oo qalooc yar uu galo sidaa daraadeed waxaan leeyahay madaxda Soomaalida waan idin jecelahay waan idin soo dhaweynaynaa madaxdeedii baa tihiin waan idin ixtiraamaynaa mas'uuliyadiina aan idinku dheeraynaa laakiin garta haddaan idinku ogeeyna dadka dib u weydiiya wadankani waxa uu soo maray taariikhdiisu waxay ahayd waxa ka iman karaya ciribteedu meesha tegi doonto xaaladda siyaasadda waxaa lagu jiraa xilli adag oo ay jirto kala qaybsanaan iyo hardan siyaasadeed oo weyn laakiin waxaa hubaala in Soomaalidu ay isku khasban tahay kala maarmaynin ishuuraynin ismoowarta tahay oo meel ayna kala tagayn marnaba waxaad arkaysaa ninkii ka hadlayay ee gobolka Wajeer countiga Wajeer ku-xigeenka ka ah inuu Soomaali yahay yaftakhir uu ku faanaya inuu Soomaali yahay waxa uu qabo waxa la ahaa siday ahayd buu darayaa xageed u maleynaysaa inaan kala u sii kala tagayn calankan hadda lagu sameeyay tashanta geesli for marka laga hadlayo oo calanka muuna ahayn British Somaliland iyo koonfurta Talyaanigu gumaysan jiray ma ahayn fikir kale iyo xulum kale jiray xilligaas waxa dadku ay inta u soo marayeen wax kala duwan oo badan bay ahayd aan ilaahna hadda khasaare kale lagu sheegi karo intaan u qaxnay baan ku badbaadnay haddaan isla burburi lahayn ba ka sii daraan lahayd laakiin riyada xilliga halka joogtay maanta annaguna ma sii kala tagayno meel kalena uma socono haddii dawlad Soomaaliyeed oo saldhigto oo wanaagsan la helana dadka Soomaaliyeed way soo buusayaano maanta ninka jooga gaaris jooga qof waloo Soomaali ka Djibouti jooga Soomaalinimadu waa wax uu ku faanayo danqayso markuu dibadda joogo Soomaali baa tahay Itoobiya baa tahay waa sumad aan bedeli karin sidaa daraadeed waxaa maanta inala furan oo inala gudboon inaan ilaalino waxa inaga dhaxeeya Ilaahay baa Soomaali inaga dhigay isku dhaqan isku af waxa isu yimaado qowmiyado kala duwan oo intaas af iyo intaas luqadooda laakiin waxaan u baahanahay hogaamin inaan helo القيادة الراشدة
سؤال ما أنت من بعض المجر أنا وقت أبي حدونه سامين أي حصوصا دون أي نبتة أكوجته اللي بدون تعديل عائلة وهذا واتان إذا وضن كان ودب ودسم الأباهي دولة منه لا يقلله يودن كان إنتي بلا أوروريو إلى تروح ما أنت إنه يقوم يمسك وحياة أباهنا إلا لشيء أنا سيدك ده وحلا وقفت واحد تاعي وح كو بل إن دولة نمدي الصومالية العراقية ودولة دي فضل هالكاهد دولة دولة دي سياسيين تي وح كده هي والدستور كا إن استجل لها شقيه سيد اللي يسوق من لها إلا وحلا وقفان لها هدي لها لا اسكو وحال إلى dadkan hadda boojska iyo meelahan ka ugaarsadaan waxay yiraahdeen uurkooli baa ugaarsata macnaheedu waa maxay مثلا markay ugaadhi doontaan hadday laba qof iskhilaafto hal eray isku khilaafto oo meesha ugu fog ay joogaan dib baa loo soo noqonaya oo maxaa la leeyahay ugaadhana ma helin cadowna wuu ina gelaya markaas waxay yiraahdeen uurkooli baa ugaarsata dad isku niyad fiican baa ugaarsada haddii la helo markaa uurkooli niyad wanaagsan kii dawlad goboleedka ahaa kii siyaasiga hore ahaa kii xisbiga ahaa kii dawladda federaalka joogay aanu si niyad furnaano oo uurkooli aynu noqono waan ugaarsan karaa waddankeena horumar buu gaari karaa wax walbaan samayn karaa markaan intaas samayno waxaan ka shaqayn karaa waxyaalo badan oo maanta inoo hor yaalla ee marka hore aan muujino niyad wanaag aan noqono uurkooli maanta wax nagu kala maqan anaga iyo dawladda federaalka ma jirto waxaan ku mutaysanay intaasoo caqabadood oo dhacaya ma jirto waxaan ku mutaysanay maanta in la yiraahdo hooyada dhobley ka soo tagaysay waa inay 2 saacadood iyo bar soo socoto 30 daqiiqo meeshay soo soconaysay meeshay $50 ka bixisayna $300 ay ka bixinayso oo wareegga inta la gelayso ma jirto sabab keenaysa in dadka la xusuusiyo waxyaalo badan oo noocaas ah waxaa mas'uuliyadda iskale dawladda dhexe wax kasta oo xal iyo wanaag inay keento waxaan diyaar u nahay oo u aqoonsanahay inay waalid noo yihiin inaan anagu u aqoonsanahay dawladnimo inaanu nahay xertoodii inaan nahay shaqaalahoodii inaan nahay gacan yarayaashoodii laakiin macnuhu muxuu yahay caaq inaan noqono iyagaa sababi karaya ilmahaaga labada ilmood ee dhashay haddaad sidan iyo sidan kale tiraahdo adaa wax walba isaga dhigi karaya markaan intaas samayno yaa waxaan gaaraynaa markaa waxaan u baahanahay waxaan aad ugu faraxsanahay in abaalmarinta Nobel Peace Prize la siiyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo maxay sababtu tahay Ethiopia iyo Eritrea waxay ahayn cadal caadi aad u adkayd arrintooda inay isu yimaadaan oo xaaladooda la xalliyo oo la dejiyo waa waxaan aad ugu farxayno laakiin waxaan rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo xafladahaas la tagay arrintaana arkay inuu garto kuwiisu inayna sii kala tegin intuu aabba noqdo inuu beri Kismaayo yimaado oo dadkiisa uu la hadlo oo uu yiraahdo war Axmedow wariga waxaad ku khaldan tahay Axmedow waxaad ku khaldan tahay oo wadadu sidan maaha oo sidana saxa oo taladana ila quman oo sidana waalid ku ahay oo madaxweynahaagii baan ku ahay oo dhinaca ugu caasiyana sidan iyo sidan isweydiino oo isqancino waxaan isleeyahay waa wax sharaf ah waana rajaynayaa inuu la iman doono sababtoo ah wax ka weyn buu soo arkay waxyaalaha inuu hor yaalla maanta arrimaha ammaanku waa shay muhiim maanta inoo in laga wada shaqeeyo ay waajib tahay waxaan ka hadlaynaa maanta magaalada Muqdisho 2,000 oo dhagax oo taala ganjeelayaal miya lagu xiray maxaan kaga gudbi karaa waxaan kaga gudbi karaa kaliya inaan warka isweydaarsano amniga ka wada hayb galo amisom baan ka maaranaa shisheeyaan ka maaranaa innagaa isku filan maanta amniga halkan aan ku joogno shisheeyana wax nagalaba qabto cid kalena maanta ma aragtaan wax kiyana waa jaraal dhuuma ma waa waxaan inagu qabsan karayno taa macnaheedu waxay tahay innagaa iskaga filaan karna waxaan doonno si ay yeeli karnee amniga aynu siina priority-ga oo yeesan dhicin markaan amniga ka shaqaynayn takanadiga loo shabaab ka yeelaan
inay cabdiwajanan sida lagu xidhay yiraahdo shabaabka la dagaalamayay oo qiso noocaas intuu maanta ku xidhan yahay kii shalay shabaabka ka xidhay ee uu la dagaalamay maanta uu hortiisa ku xidhan yahay oo haddii kiis loo haystay intay maxkamadda la geeyo gobolka ay tiri waa lagu waayay dambigaas oo warqad la siiyay la siyaasadeeyo oo kiisaana intii lagu raadiyo la yiraahdo haddaad sidan yeeli wada kanaad yeelaysaa oo kii shalay uu la dagaalamay maanta uu u xidhan yahay amniga yaa ka shaqaynaya waayo ruuxa amni ka shaqaynaya haddii loo raacayo shabaabka yuu noqonaya maalin walba waa la dagaalanaa dagaal baan waan isdilaa meel baan isla naala ma wuxuu ugu xukumayaa isagu waddanka absolutely maya amniga waa inaan ka wada shaqayno markaasaan xorriyad iyo nolol u baxaynaa waa inaan doorashada 2020 ka shaqayno waan garanayaa aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweyne aanu lama soo shaqayn siyaasi hore maan ahayn qoladii labada shariif iyo raggan kaliya ku jiray faroliyo kuma jirin laakiin xilli dhow aan la soo qaybsaday madaxweyne xasan waxaan ugu mahadcelinayaa doorashadii 2016 markii lagu soo socday tiimkiisu oo ragga qaarka hadda aan sheegay marxalado badan bay ka shaqeynayaan fikir badan baa la isla keenay wuxuu qaatay wax waliba ka qaloocsanaatay in doorasho dhacdo waxay noqotay intaan tashi isugu nimaadno waliba aan anagu ka aqlabiyad badanno inuu yiraahdo sida aqlabiyada aad u qaadatay ama idinku raacay oo ay keentay in la qaato nooca in isteedyada ay noqdaan meelaha doorashada ka soo dhacayso oo intii la dhaadhiciyo halkaa la gaarsiiyo halkii oday laga tago mayna madnayn xilligaas wuu har fadhiyaa madaxweyne xasan sheekh waxaa laga shaqaynayay extension 2 sano oo baakeyta oo baarlamaanku ay leeyihiin madaxweyne xasan geesinimo uu jeeyo wuxuu may sharaftii baan ku tagayaa taasaan ku qaadanay waxaan maanta 2020 in doorasho dhacdo 2020 bilowgeeda waxay ku xidhan tahay in hadda laga sii shaqeeyo ama la yiraahdo wartii 2016 baan qaadanaynaa ama la yiraahdo may waan beekhaaminaynaa district baan gaarsiinaynaa ama la yiraahdo war odaygii aan idhaahno laakiin waa in talaabo la qaato inta in ka badan kiiska doorasho waxyaalaha xasaasiga hadda dhibka keeni kara Soomaalidana wuxuu arkay in wada damac ku jira muxuu yahay damac ku jira wallahi waa da istaagtay waa helaysaa saarag badan oo ku tashanay oo laga yaabo qaarkood ra'iisul wasaare inay deedeeyeen oo qaarkood laga yaabo inay rajada ka qayb baan wali intuu soo sharxay nasiibkiisa uu ku helay lacala haddaan anada Jubbaland intaan ka tago hore u baxo inaan heli lahaa baa laga yaabaa marka aan chance-ka la baneeyo dadka hala siiyo fursad ay leeyihiin inkasta aanu hore aanu sheegay inaan meeshaan u socodin siyaasadda inaan ku sii jiraan aan rabay wallahi dhamaystirka dastuurku in dastuurka la dhamaystiray waa shay waajiba laakiin waxaan oran lahaa warbal dastuurka la joojiyo faraqsi buu ku jira dadkii lahaa ehelkii oo gacanta kuma jiraan odagii jawaari ay rogrogi jiray xataa ma jiro ninkii Allah u naxariistay ahaa xoosh oo isaga laftiisu dhinac ka wada uu dhintay Allah u naxariisto cid lagu og yahay ma jirto malihi markaa sanatarada iyo xildhibaanada ku hawlan iyo wasaaradii anigu matalaadan ku haasto sababtoo goolahay hal laga wada labayo waxa la tahay bariyaha soo la yiraahdee oo istoo waxaanu leeyahay dastuurku inta in ka badan ma xamili karo halka lagu joojiyo waxa aad looga hadlaa deyn cafis waan soo dhaweynaynaa deynta in la naga cafiyo oo shakhsi kasta oo Soomaaliya ilmaha yarka ee deynta lagu leeyahay ee uu ogeyn wax galay aniga maanta Axmed ahaan nin weyn baan ahay ilaa dawladdiyo waxaan ardadii kuleejooyinka dawladda wax ku soo baratay cashuur lagu soo koriyay oo wax ku soo baratay deynta lagu leeyahay aad igama dhaadhicin karay haddana dawladnimada iyo buugaagta dib ugu noqon waxay tahay marka inta la cafiyo waan rabnaa in la iska cafiyo wardeeqda hadda aan qaadanayno iyo deynta la cafiyo waxa laga helayo iyo canshuurta aan qaadanayno accountability hal leelo horta hal xisaabtamo oo waxaan aan ogaado waxaan ku leeyahay
waxaad maqlaysaa 100 milyan baa qolob bixisay intaasaa la bixiyey ma sheedna maalika ahli meelay ku dhacdeen war looma hayo waxbana lama wardayntana halanaga cafiyo xisaab celina ha la helo dadkuna ha u sinaadeen taana waan oran lahaa waan soo dhaweynay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed beel looga wareega malaha bulshadu waa inay isku mid noqoto siyaasiyan intaas waad ka wada qarabtaan mana ahan si qof ama qaar inaga mida u rabaan inay wax u jiraan waxaan la rabo waxay wax guud inaga ilaa wada jira oo aan u wada baahanahay waxaan ku wada gaari karaa wada shaqaynta iyo isku dhawaanshaha isku kalsoonaad qolada la yiraahdo international community juhdi badan bay Soomaaliya galiyeen wax badan bay qabtay waan u mahad celinayaa juhdigay galiyeen dhaqaalaha ku bixiyeen laakiin hal baan rabaa inaan wax yar ka hoos ilaado safiirada iyo beesha caalamka dadka matalayay nin walba adiga CV-gaaga iyo intaan joogo wax ma dhicina ka dhigin waxa dhabta ee wadanka ka jira intaad ka hadashaan boolisiga wadanka iyo wanaagaad uga tageysaan ka shaqeeya laakiin ha ka shaqeynina Axmed Raalaha ka noqdo iyo hebel Raalaha ka noqdo kana ka noqdo waxa laga shaqeynaya ha noqoto wax noocaas laakiin guud ahaan waan uga mahad celinaynaa waliba talaabooyinka ay qaadaan iyo maanta sida ay u jiraan iyo inay dareemaan wadanka dhibaato inay ka jirto aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay markaan Jubbaland nahay waan soo dhaweynaynaa cid kasta oo maanta wanaag nagala shaqeynaysa oo diiwaansiin nagala shaqeynaysa oo canaan aan leenahay loo sheegaysa oo wax aan ku khaldanahay naga qabanaysa laakiin waxa inta Soomaali baahanahay shacabka laagtay leedahay waa siinay amisom waa loo mahad celiyay horena waa loogu mahad celiyay mahad celinteeda waxay asal u ahayd inay dhiigooda iyo naftooda u hureen waxaan rabaa ciidanka amisom inay taariikh Soomaaliya uga tagaan ma aha inay joogaan dhufaysyada ku jiraan waxay u baahan tahay inay tagaan oo Soomaaliya ay uga tagaan wax fiican oo ciidan Soomaaliyeed oo dhisan oo hubaysan oo tababaran oo lagu wareejiyo laga tago laakiin haday noqoto ciidankii Soomaalidu inuu banaanka ku baabacsan yahay iyaguna ay tufaaxa iyo qaraha iyo meelmada dibadda loo kala lacagna la qaato macna badan ma sameynayso legacy aad ka tagaysaa ma wax dhimaysaa ciidan Soomaaliyeed anagana nagu canaanta waliba si culayska aanu dareennay waardiyayaasha badan ee meelo badan saaran ee ilaalinayaan intaad ka gudubtaan isku tashado dhaho ana idin mahad celinaya hadana hawsha laga shaqeeyo midnimada shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celiyo hal la xoojiyo waana muqaddas meel looga wareegana malaha waxaan loo baahan yahay in si tixgelin leh iyo dulqaadasho leh iyo isu tanaasul leh aan uga wada shaqeyno wax kasta oo ummadeena isu geyn karay waxaan rabnaa inaan difaacano wax kasta oo qadiyadaha dalkeena iyo dadkeena ay wax ku noqon karaan aan gacmaha isqabsano si aan u guuleysano dalka Soomaaliya ayaa Allah idinku wada abuuray meel kala aanana malaha iska daa Soomaaliya darisyada kale leenahay waxa la yiraahdaa dariskaaga aad uma samaysatid Ilaahay baa ku sameeyay kuwa aan leenahay laftirkooda yaa waxay tahay inaan u baahanahay inaan garanno dariska aan nahay waxay noo yihiin waxaan rabay inaan u mahad celiyo oo salaantana ku daro waftigii balaarnaa ee Kenya inooga yimid ee uu hogaaminayay majority leaderka Aadan Bare Ducaale ee uu ku jiray Yusuf Xaaji oo inta badan ahaa mas'uuliyiin oo aan oran karo waxay waqtigooda u soo bixiyeen wax badan u soo qaateen inay nagala qayb galaan culayska iyo waxa aan ku jiro oo idin cadeynayay waxaan marar badan maqlayaa Jubbaland Kenya ku darsanaysaa iyo xagga u socotay waxyaalaha asaadiirta inta badan meelaha lagu riyoodo halka oo Soomaaliya kamid meel loo ogol waxaan in badan ka hadlay oo mar laga hadlay xuduudka Mandheera iyo xuduud laga wada hadlay waxaan lahaa wareenta federal baa iska leh iyadoo
هذا نبكي أنا ونقول دعيه يا وحالنا وفضل هالإشي أنا جمله شغال إذا ما هنا صومالي كو حين نقاب سويننا يجونا هل تاكو صومالي أنا وصعدان وحين لما الدولة كدحية وحياة كدحية دولة كوضا هالليا طريقة كوضا هالليا يقالنا تاس مسؤولية إذا أنا جماعة وحنقول مع العلنا يا وناقة يا عيدا كوضا وحين نلقبتين يكوى كلا أمس ولا نلتشوه انتبه arrimaha amniga horaan uga soo hadlay waxaan rabaa inaan ku gunaano waxaan intiinaan ka ballan qaadayaa hortiina inaan ka shaqeyno isu keenis iyo nabad saaxiibadayda maqan aan si kasta ku raadin karo ku keeno aan midayno oo dadkaas iyo waxay tabanayaan aan ka jawaabno laakiin tabashada Soomaalida inaad dhageysato in wada mooyo waxa adag inaad mar walba jawaabtooda aad bixiso laakiin intaan dadaali karno waan dadaalaynaa إذا كان سان شلب إذا كل شيء قف كسته وحتوانا أنا معصوم ما يقف معصوم من المجري قف البوح وحتوانا وحلا شجعنا إلا جوال الشقي صوماليا ماشي كسعته وحيلتها دمشقين يا ولا هذا يا سفجرة بانكو باقينا دولة الصومالية وحاربو باقينا مدحوينها رئيس الوزراء صاحب كي أبشر وهذا وكيلك بدونك بارلمانك واندين باهناي madaxdeedii baa tihiin aan isa saxna noo imaada waxaan ku kala khaldanahay aan isweydiino ina warciina dhaxdhaxan soo hadaad soo hagaagi weydaan waxba dhimal annaga idiin soo hagaagayne meesha harta هذا كما هالعلوم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.